oo aan showga aan tagay taageerayaashii banaanka joogay iyo kuwii gudaha ku jiray iyo kuwii ku bishiinada cabayay iyo kuwii laamiga marayay dhammaan waxay ku soo wada xaroodeen hoolka waxaan istaagay maslaxa waxaa soo wada yaacay taageerayaashii albaabka waa loo balaqay waa ay soo galeen dhammaan waxay ku soo wada xaroodeen hoolka kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahantiina waa sidaad u dhantihiin waxa idin la hadlayaa waa Socdaal Channel halka iga daawanaysan waa YouTube Socdaal Channel iyo page Facebook ee halista photograph caawa waxaan idin wadaa warbixin xasaasiyad leh waxa idin wadaa caawa warbixin xasaasiyad leh taas oo aniga ahaan Socdaal ahaan igu dhalisay la yaab iyo amakaad markii aan daawada aan arkay warbixinta aan ka hadli rabo caawa waa warbixinta maalmahan aad ka loo hadalhayay oo ahayd Socdaal Channel in lagu dhex feeray hotelka Royal Plaza ee showga ay ku qabsanaysay Fadimini soo dhawaada markii waadi mar labaad mar saddexaad waxaad ku maadsantaa daawaday sida aad muuqaalka aad u daawanayso haddii aad fadhi ku daawanayso aad baa maadsantahay haddii aad istaag ku daawanaysid waad maadsantahay haddii aad jiifka ku daawanaysid aad aan kaga madcelinayaa boqolkiiba boqol soo dhawaada markii waad mar labaad mar saddexaad habeen la soo dhaafay habeenadii hore oo laga soo gudbay waxa dhacday aniga Socdaal ahaan in aan baxay aadayna show lagu qabanayay magaalada Muqdisho showgaas oo ay qabsanaysay fanaanada caanka ah ee Fadimini halkaan ka salaamaayada marka labaad haddii aan u gudub galo qodobkayga oo ah showgaas waxaa lagu sheegay Socdaal Channel in lagu feeray taageerayaal Socdaal Channel ka soo horjeedaan in ay ku feereen ayaa la sheegay lana shaaciyay waxaan leeyahay waad mahadsantiin boqolkiiba boqol dadkii baahiyeen fikirkaas qaldan ilaa hadartan waxaad cadeynaysan inaad ka xuntiin aniga horumarkayga wuxuu fiidiyoga soo gaaray markii aan ka imid showga oo aan xaafadeeda aan imid isla xaafadeeda markii aan soo gaarayay ayaa fiidiyogii waxa arkaa isagoo fiidiyo iga horeeyo oo aniga hor yaalo fiidiyogaas showgaas waxa ka dhacayay waxyaabo fara badan fanaaniin badan baa iskugu imaaday waxa lagu soo bandhigayay heeso fara badan qosollo aad oo cajaa'ib leh qof kasto wuxuu ku soo bandhigayay asaga talentiga aniga habeenkaas waxaan lahaa balamo kale sida awgeed waa aan soo daahay waxaan ku soo aaday showga oo gabagaba ah oo dhammaad ku soo aaday haddii aan showga aan imid oo aan soo gaaray waxaan u gudbay sida lagu yaqaano fanaanka markii uu imaado show markii uu imaado in uu macnaha fariisto meelaha loogu talagalay fanaaniinta haddii aan u gudbay waa adiga xoogaa kadib waxaan u soo dalacay dhanka iyo hoolka haddii aan imid hoolka maxaa ka dhacay waxaa la sheegay hoolka aniga in lagu dhex la sheegay dadku indhawla maaha indhahoodana xaar ma saarno wayna u jeedaan wax walba ayagoo wax walba ay u jeedaan ayaa dad horumarkayga aniga ka xun waxa ay sameynayaan dadkii oo ayagoo u jeeda dadkii oo ay arkayaan ay wax isku dayaan indha mudiyaan macnaha indhaha ay xaar ay ka mariyaan waxay sameynayaan waxay muuqaalka way jarjarayaan way kala hagaajinayaan muuqaalka waxay ka dhigayaan si uusan ahayn habeenka waxa ka dhac meesha waa la daawanayay habeenka markii aan showga aan istaagay oo aan showga aan tagay taageerayaashii banaanka joogay iyo kuwii gudaha ku jiray iyo kuwii ku bishiinada cabayay iyo kuwii laamiga marayay dhammaan waxay ku soo wada xaroodeen hoolka waxaan istaagay maslaxa waxaa soo wada yaacay taageerayaashii albaabka waa loo balaqay waa ay soo galeen dhammaan waxay ku soo wada xaroodeen hoolka aniga waxaan qabsaday mikrofoonka waxaan fuulay maslaxa indhahayga waxay qabanayeen shacab weynihii ka soo qayb galay xafladda oo soo goosanayo xaragihii loogu talagalay fanaanka hortiisa inay ku xirnaadaan asagana oo ka qaado heeso markaas oo ugu talagalay security halkaas joogay waxay isku dayeen in ay celiyaan dadka oo aniga igu soo wada yaacayay aniga waxaan markaas fiiriyay baahida markaas dadkaas ay qabaan shacabkayga iyo taageerayaashayda kadibna waan fasaxay waxaan u ogolaaday in ay dhammaan ila caawiyaan ilana baashaan laan okay waxa dhacday mid yar oo ka xun horumarkayga ayaa wuxuu sameeyay markii aniga la xambaaray oo kor la ii qaaday koofida ayuu iga jiiday halkaas qof oo koofida iga jiiday ayaa waxa laga dhigay in taageerayaashayda xafladda ka soo qayb galay aniga habeenkaas ay ifeereen amba ay dhibaateeyeen way jiraan dad badan oo horumarkayga ka xun way jiraan dad badan oo horumarkayga ku faraxsan ma fiirinay dadka horumarkayga ka xun maxaa yeelay waxaan haystaa fikradeedii dhiirigeliyaasha oo ay ahayd ha fiirinin dadka horumarkayga ka xun qof walba oo horumarkayga ku faraxsan waan ku arkaa waan ku daawadaa waxa dhacday in
soomaalida oo idil dhammaan markii la isku soo wada koobo dhammaan ay wada noqdeen hal mid kuwa oo ah kuwa aniga i jecel dhammaan markii ay hor imaadaan iyo markii ay meel ugu arkaan dhammaan kuwaas oo ah kuwa aniga i sacabtuma kuwa cirgaha soo goosanayo showga ku soo cararayo maslaxa soo fuulayo banaanka soo cararayo shaaha markii ay cadayaan maqlan codkayga soo galayo maslaxyada aniga aan kaysayo dhammaan waxaan leeyahay madaxa i saarantiin all Somali Fever wayda wata sida caadada ay dhaqanka i ahayd heesayga markii aan diyaarinayo waxaan u soo jeedaa habeen oo idil xalay waxaan u soo jeeday heestii cusub sida caadadii ay ahayd sida ahayd inaan u soo jeedo hees markii aan diyaarinayo habeen oo idil indhaheygana aanan isku geynin xalay waa aan soo jeedo oo idil waxaan u soo jeeday diyaarin hees cusub taa oo ah mid idinka aan idinku qancinayo heesteydii cusbeedna way idin soo gaari doontaa weliba isbuucan gudihiis 27ka 26ka ilaa 23 inta u dhaxayso ay idinku soo gaari doontaa waxaan jeclahay inaad ka bogo doontiin heesteyda cusub taasoo ah mid idin cajab gelin doonto idin qanci doonto waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka sida aad daawanayso aad baan kaa mahadcelinayaa